Somaliland heshiiskeeda boqol ma geli karaan iska xukuumado go'aankeeda boqol waxba kama bedeli karaan boqolkiiba 790 dhibic 9 baa u codeeyay Somaliland in gaar isu taagto iska xukuumadda cabinetka kontonka ah saddexda gole waxba kama bedeli karaan kun qof waxba kama bedeli karaan qabiilo waxba kama bedeli karto gobolka Maroodi Jeex oo maanta Somaliland dadkeeda ay ku soo ururaan waxba kama bedeli karaan yaani waxa weeye laba gobol oo israaca waxba kama bedeli karaan waxa wax ka bedeli kara boqolkiiba 790 dhibic iyo wixii dheer waxa la dhawaar waxayda ka dhaxeeyay ilaaliya xamar nimanka ilaahay nabad hasi halkooda ilaahay wax ku sii halkooda ilaahay dawladnimada ku sii dhibaatada ilaahay ka qaad laakiin loo marxamad ha ku riyoolina in badan baa wax idin sheegay maanta waan ku sheegay 4 sanadood wixii aan akhriyay lagu soo jabay way waxaan kala hadlay ma aha waxaan habeenkii soo akhriyay 30 sanadood soo socda xamar waxba kama dhawaa war khilaafka hayno soo rarina warmadina wixii ay u qaban kartaan u qabto horumar la isku ma haysto wixii ay soo kordhinaysan la isku ma haysto war heshiisida kontrabanka hore loogu jabay warka daayo wada war waxa yaray naga dhaxeeya waxa weeye waxa aynu ku heshiin nabada aynu maanta masaajidka ku fadhino nin walba alaabtiisa uu barkan yahay waxa laga dhaxeeya waxa weeye ee ummadaasi ku kala nabadgelaysa ee ummadaasi ku kala socota ee ummadaasi iyadoo gaajoonaysa ay ku sabraysa ee lagu kala sadbursaday ee maanta kii lugaha la'aa iyo kii indhaha la'aa iyo kii dhagaha la'aa iyo agoontii ay ku sabrayaan maanta xorriyadda ay haystaan ee laga yaabo mid meel uu soo maray aan jirin maanta inuu daarada dheer ku jiro intaas oo laan kurisar ku haysto intaas oo milyan isoo kala macaashay hadana cid ku haysta ma jirin kuwaas waxay ku sabrayaan haddana oo ay ku qanacsan yihiin labada iyo wixii dadku ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo haddii taa la ilaalin waayo war xamar waxa ma yaala iyaguna arrin ma hayaan waa ogtiin maanta kismaayo waxa ka socda so many factions in this operation baa madaxtooyada horteedii ka dhacay war khilaafka xamar yaalay inaan soo rarin war waxayna yar inagu filan dalkani waa qani sources badan buu leeyahay ummaddu wixii ay idin egmatay uun ku shaqeey oo iyana ku mashquulin heshiis aantan inoogu jirin turkiga niman muslimiin la yiraahdo oo al-islaam al-mu'aasir la yiraahdo hogaaminaya waxay ku hamiyeen khilaafadii islaamka oo ay u dhiibeen wadaadda casriyeysan ma yisamba al-islaam al-jadiid iyagoo aragtida ay qabaan turkigu iyadoo qoran baa la hayaa constitution-koodii xalay oo dhan baan akhriyay Soomaaliya istiraatiijiyad buu turkigu ka leeyahay ka baxsantaynu doonaynayno dunida waa give and take waa hoo iyo kaan nin walba maslaxadiisa laakiin waa adiga iyo kartidaada iyo caqligaaga iyo raganimadaada iyo waxqabadkaaga inaad cid walba sharkeedana iska moosto khayrkeedana aad soo qaadato laakiin taa macnaheedu ma aha marka aad doonayso inaad tallaabooyin qaado tallaabooyinkaasi waa inay noqdaan qaar aan raad ku yeelanayn midnimada ummadda iyo heshiiskii ummaddu ay gashay ee ay ku taagantay dalkani uu ku taagan yahay in aad iyo aad loo ilaaliyo in badan waan idin sheegay anigu waxaan ku qanacsanahay manhajka ikhwaan muslimiinka in ummadda lagu hogaamiyo waa manhaj libersan oo dadka ururiya laakiin manhajka macnaheedu manhajkii imaam xasan al-banna oo ku dhawaaqay iyo manhajka maanta maxamed mursi uu doonayay in nailka ku difaaco yani una ka farq
استراتيجية مانت محمد مرسي ووضع وصوماليا كله هي استراتيجية الإمام حسن البنا نكى مؤمن كها تريد أوردن كيا بيكون يسقال بقولي استدى لباتنكي يسقو لبيا كون يسقال بقولي اللحدي بيا حيد كون يسقال بقولي يسقال يا فرتن كنا ولا الدلي صدق يا فرتن شربوها مالنتي كوان كلو قاتين للدلو كون يسقال بقولي استدى لباتنكي بو أساسي يسقو أو أهل بيا لباتن شر أفر سردود جذهودنا وحيسو كان إنك بدن 4 مليون يستد بقولكم wuxuu ahaa ninka 1 milyan oo qof nin walba magaciisa iyo gurigiisa iyo sanduuqa bariidkiisa hayay maalmaha ka mid ah leeyahay waxaynu u baahanay markas ee dhibaato ma laha 20,000 oo inaan baan garanay buuri nin walba waxaan doonaa gin soo dir 20,000 oo warqadoodii soo diyaariyay dhimka mid walba magaciisa ku dal qoray iyo meeshu ku nool yahay iyo halku joogo ee dhigana weyn loo soo dir 20,000 oo gin saacad gudahood ururiyay insaan boo ah aynan ka warramin taariikhdiisa iyo wanaagiisa aynan ka warramin laakiin kama warramayo al-Imam Hassan al-Banna rahimahullah hogaanka maanta Masar ka socda waa hogaan استراتيجية وصوماليا كلها أي تاي إثيوبيا إن متقال لك إنه إنه نايل كيلالين بقد النظر والواحد دياره هنا قدس قدق على ما اللي بيسقاش المليون باتينه والحرنا هي حتى قدس انتي وشرتها مصر ما انت قاهرة وشرتها حتى قد يد الدين تحي وأن الدين قدق على ما إنه هذه أي تاي استراتيجية مصلحة ذات وأضوء أتاض إلى عشان يسأل أنا أدون يصدق الآن نقول كرينا قالوا دل شني 6 مليون وتقال كي 700 واحد يقول قال لي استراتيجية سؤال عدين وأودوا ذا يلوجنا هاي وشارنبذوا ذا يلوجنا إنتصوا مسلمين كلوا ليهين وإن الشركة ذا يسكن موصلوا خير كودنا قاضنوا إسلام مركا طاب كإنه ورنا ولا إنه دين تنا إلى عشان إننا إنه دي عقل جديد مسكح دي إنه كانوا هذا هو الفرق إذن ما قاضن كرينه بقثها وثمينها أما هكو معاناته أما هكو قرارته وحوي بيستينده waxaan ku soo raacaya siyaasadda Soomaaliya kale hay sideeda u fuliya waxaanu qaadan kareena taadar ma wax Soomaaliland dhaqaysan ma wax ay dhuma garatay waxway qof walba maslaxadiisa islaamnimadu waa halkeedii Soomaaliya diin maaha Soomaaliland diin maaha kun goorna waa la diishay كورن ما يسمى اللواتين لكن هو استراتيجية وبدأت بقولين ولذلك وحوي إرادة تراد الصومالي والدين لك هاي الماية سيدبات استراتيجية ذات إخوان المسلمين كتركيا مصر وضع ويقول لي المقرة الصومالية اللي يسكوا عليها والله قام مهرمان مقرة استراتيجية وبدأت بكتشرة وحاسة كتشرة وحاسة كتشرة وردون يقوم ماذا بقول لي ظلمكم عسام با ظلمكم مدو با ظلمكم أخضر با ظلمكم يلو با ومعنيه دو أنو قتشيدو وظلم ذوي القربى أشد مضادة في حسام المهندي لأن هذا عقل بضنبا بريق العراق يعني هو ك دولدي هوريد تذكر رشين سيلين يسيبون اللحظ وعلى وردتك سوى ضد مسلمين وحك عمليه وررنتooda hal eego على الأقل hubkayna ninkaasiin ninkii maxaa ku dhacay subhanallah waxa la leeyahay wuxuu karaamo lahaayeen baa tajriid lagu sameeyay war waxaan idin kula talinaya warnimakaasi ninka hubku ka daay hada waa tala yar bay hubka lagu leeyahay dadka muslimiinta halaga daayo kali ikhwani wa ahibay fillah waxaan ku soo ururinaya Soomaaliya waa hadaf هدف واحد وجهه ملح بينه نقولوا waxa lagu leeyahay wax soconaya ma jiro koonfurta Soomaaliya ilaa kuwa alla keeno awood ay maanta ku hogaaminana ma jirto mushkiladda si khilaafka wax aynu ka qaban kareynaa ma jirto inteedii baynu qaadi kari lahayn walidaalku waxa weey digniinteedu waxay tahay war wax badan baynu qabsan kareen war umad baynu leejirta war wax badan baynu soo qabsanay war hatta hadii la guuriyo way naga jimxoor lahayn waxa
waxa way dadka aqoonta leh waxaan khibrada u leh wax laga weydiin ya aqoon maxaa uga jeedaa marka doonayso imka bal ruushkii bal Mareykankii 1991 horena halkan waan uga sheegay Mareykanka aad aragtay ayaa iyadoo Dubai ayuu wuxuu apply gareeyay nin buu yeedhay waxaan u baahanahay nin reer Soomaaliland oo ka sii gobolkaasi oo ka sii degmadaasi oo ka sii halkaasi afaran jaro waa 1991 oo aanu siina lacagta inta leh kuwii dunida haystay ya markay dan leeyiin inagana Kenya aqoonta lahaa ee kartida lahaa ee waxa laga hadlayo iyo cid la hadlayo aqoonta u lahaa ayna waxba weydiinin ninkiiba waxa lagu leeyahay 3 goor baa lagu soo noqday ninkii bariyay baa ku yiri afkiisan ka qaaday inankii kalbadaas waa ku leeyahay ka ay bariyay waa nin imaaraadka u dhashay nimanka mukhaabaraadka laakiin Mareykanka la shaqeeya haddaan helayay buu yiri fursadaasi maanta Mareykanku adiga kugu raadinay inankiiba ku leeyahay inankuna wuxuu ku leeyahay marwalba Ilaahay baan baryo waxaan Ilaahay iga nabadgeliyo nimankaas shaqo yar oo noloshiisa ku filan oo garanaya Mareykan wuxuu yahay wuxuu ogay marka laga dhameystay in aakhiro lagu dirayo marka waqtigaagu dhamaado hadhow bal way meel alaali meel tagtay idin ku garanayso walidaalku waxa waxaan Ilaahay baan baryo waxaan Ilaahay inteeda yar baa igu filan kuwa iga nabadgeliyo maalintii dambe midaas uu wareedhe Ilaahay baan waxba kula doonayn ya inuu isagu hoosta ka ducaysanay buu ogaa ninkii wuxuu waa ninkan hadii aad u taag weyday laga daayo ma gartay anaga cid kala dooranayna maxaa ninka ku xidhnaa waa 19 maxaa ka jiray Soomaaliland maxaynu haynay 19 macluumaad baa ku xidhnaa waxa la doonayay research dirasa la waday Soomaaliland laga waday oo Mareykanku raadinay oo la doonayay si daqiiqa oo la taaban karo in loo helo si loogu tala qaato wax la taaban karo ya war dadkii la aqoonta la adeegsada war umadiina ururiya war marka masiirka umada aad doonaysaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ina go'aan ka gaadhaan cidda aqoonta u leh waxaas wax ka weydii arab marka la kulmayo subhanallah 89 kiiba anagoo hawdka markii la joogay ba ninba khuruujul awdihi ka dhacay markaas Sacuudiguna waa kii safaaradiisu iska adkaan inuu aad sabab kula kulmay qolooyinkii cadan ku koreeya سيروانيكي سفير كابا يسو إريو خروج العودي هنا ويقرع الكينو بولو ورقدير بو وحولي قلني ورقد بحيسا هل كيبو كوكري بولو ورقدير وكوبا نيكاسي بيرسونال اوفيسكو كشقين جري كامبانيغان فلور اريبيا ليميتد لورين جري سعود اريبيا دوري 3 سنه بيرسونال اوفيسكا macnaheedu waxa weeye in isla carabi iyo ingiriisi waa dhamayso in kugu filan waa taqaanabuha haddana warqadii yareed ee uu qoray ninkii oo aadisaba kula kulmay si walba isagu safiirkii Sacuudiga uu lahaa way suurtageli weyd wuxuu laba paragraph yar oo mid walba 4 line type baralaaliye markii aanu geeyay buu ninkii ayuu sidaa way goor allaaliye goor uu ku dhuftay buu yiri stampki markuu warqadii sidaa u eeg ilaa wuxuu yiri waxa jirta luqad la yiraahdo luqadii dawarsiga ودلو قلب برتوي سبحان الله أقول كستود لذي وحول بعيد بمدخل أوله ولذلك وحنا نقول بارك الله فيكم حكومتنا وحنا كوانيننا والحلوين بايدي صارن إن بدن بين صوت شبنا وينيسوق لهاي ورحمها وفرصة وهالشيء سدا كليسان وفرصة وعدة على كل مثال وفرصة أو تلذينا كوتربان ككداي ومركا أدوني سيننا عدة هذا الشان عدي أي تلذ خصيصية عدة إسرائيل ويدين شورجينيسا يعني لا تشهد